wadahaygi soo dhawow. maanta waxaan idiin soo koobayaa fili camsi iyo saynis isku jira oo ka sheekeynaya cawaaqibta ka dhalata marka ay bini'aadamku ilaahay isku diro kawaran hal tijaabo oo qarsoon ay dhaliso noolo caqli ah balse khatar ah. filimkan waxaa la yidhaha Spline wuxuuna ku bilaabanayaa labadan qof. Kifli Els waa laba khabiir oo ku takhasusay genetic engineering waxayna u shaqeeyaan shirkad cilmi baaris oo la yiraahdo Newway. shirkaddan waxay fulisaa tijaabooyin khatar ah kuwaas oo isku dara DNA-ga xoolaha kala duwan si loo soo saaro borotiin loo adeegsan karo daawooyinka. muddo dheer kadib Kifli Elsa waxay ku guuleystay in ay abuuraan laba noolo oo cusub ay u bixiyeen Fred iyo Jeanette. guushan ayaa maskaxdooda furtay waxayna bilaabeen inay rumaystaan in ay farsamadan lagu daaweyn karo cudurro halis ah. laakiin hal shuruud ayaa taagneyd: tijaabo lagu sameeyo bini'aadam waa mamnuuc. inkastoo madaxdu si adag u diideen, labada saynisaan waxay go'aansadeen in ay si qarsoodi ah u sii wadaan. halkaas ayaana qaladkii ugu weynaa ka bilowday. kadib waxay abuureen noolo isku jira bini'aadam iyo xayawaan. Kifil wuu ka shakiyey wuxuuna dareemay khatar, laakiin Elsa ayaa ku qanisay in ay tani tahay tallaabadii xigta ee sayniska. markuu uurku dhammaaday, bishinkii dhalmada ayaa cilad galay, noolihiina wuxuu dhashay xilli hore. Elsa waxay ku dhaawacantay, laakiin Kifil ayaa badbaadiyey. noolihii dhashay wuxuu ahaa mid yar u eg xayawaan, laakiin si aan caadi ahayn ayuu u koray. Elsa waxay dareentay kalgacayl hooyanimo, waxayna u bixisay magac dareen oo ah magaca shirkadda Net oo gadaal loo akhriyey. dareen ma ahayn keliya noole, waxay lahayd aqli, laakiinse dareen waxay u ciyaarayeen sida carruurtii oo kale. inkastoo oo dareen oo ahayd noole ay iyaga abuureen, haddana dhaqankeeda iyo fikirkeeda si buuxda looma xakamayn karin. waxay ahayd wax cusub oo aan xeer iyo sharciba lahayn. taasi waa meesha ay khatarta ka bilaabatay. markii xarunta cilmi baarista la rabay in dib u habeen lagu sameeyo, Kifli Els waxay dareen si qarsoodi ah u qaadeen sanduuq waxayna geeyeen guri baadiyaha ku yaala oo ay lahayd hooyadii Elsa. dareen si degdeg ah ugu kortay, waxayna noqotay noolo u eg qof dumar ah, laakiin leh dib sun ah iyo lugu xayawaan. si kastaba ahaatee, xiriirkii ka dhexeeyay Elsa iyo dareen wuxuu noqday mid adag. Elsa waxay isku dayday inay xakamayso dareen, waxayna ka goysay dabadii ay sunta ka soo deynaysay si ay u ilaaliso. laakiin dhanka kale, gurigii baadiyaha wuxuu ekaa meel ammaan ah, balse dhab ahaantii wuxuu noqday xabsi. Kifil wuxuu dareemayay soo jiidasho uusan filayn dhanka dareen ah. markii ay wada ciyaarayeen maalin maalmaha ka mid ah, Kifil wuxuu gurigii baadiyaha kula kulma dareen iyadoo isku dayaysay inay soo jiidato. Kifil wuxuu ku dhacay dabanka, waxayna yeesheen xiriir khatar ah. isla waqtigaas, dabadii dareen ee horey loogu jaray ayaa dib u soo baxday. Elsa ayaa ku soo gashay, waxayna aragtay wixii dhacay. dood dheer kadib, sir weyn ayaa ka soo baxay. Elsa waxay isticmaashay DNA-geedii gaarka ah markii ay abuureysay dareen, sababtoo ah waxay rabtay ilmo ay iyadu xakamayn karto. markii ay u malaynayeen in ay dareen dhimatay, waxay diyaariyeen inay aasaan, laakiin si lama filaan ah, dareen waxay u soo muuqatay iyadoo ku beddeshay lab. waxayna noqotay mid halis ah oo naxariis lahayn, waxayna dishay dadkii ogaaday sirta. kadib waxay weerartay Kifli Els oo keenta dhexdeeda jooga, rabshadii argagax ayayna ka abuurtay. ugu dambeyntii, Elsa ayaa dishay dareen si ay u badbaadiso nafteeda. dhacdooyinkaas kadib, Elsa weli waxay sii ahaatay shaqaale u shaqeeya shirkadda Newway, waxaana la siiyey lacag aad u badan si ay u sii wado cilmi baaris borotiinada laga helay jirka dareen. markay Elsa istaag, waxaa la arkay inay leedahay uur weyn oo muuqda, taasoo muujinaysa in ay sida uud ay u dhashay dareen. filimka Splash ma aha filim ka hadlaya cabsida oo keliya, waa digniin ku socota bini'aadamka mar walba isku daya inuu dhaafo xadka loo asteeyay. filimkan waa filim aad iyo aad u xiiso badan. daawadayaal, waxaan idin sheegayaa inaad like iyo subscribe aad naga ilaabin. mahadsanidin.